بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وأبوانة آمنة أحمد محمود أبوانة هيجن وسلام يا دمان دادهياش برنامجك دقني ودقل لباح sidoo kale aad baan u salaamaya shaqaalaha Sahal Cable TV maansada ugu horeysa aan soo qaadanayo waxaan wada dhowr maanso runtii dhowrkan maanso ma kala dhacaan waa dhowr maanso aad macnihii bulshadu u baahan tahay maansada ugu horeysa aan soo qaadanayo waxa la yiraahdaa xaqi in rageedo maansadu sida tan ay ku bilaabanaysaa xalay baan fariin helay xogta dunida taaliyo xaalkuba sidoo yahay xayn ku soo helay xalqad baa idhaafto xog ogaalkii aan diray xaasha iga ma qarinine aan idin xog siiye xanuun iyo jabaa jira xaalku sidoo ahaan jiray xaq weyn ayaa yimid xaawaleedii dooxiyo xumaan lagu abuuriyo xubnaho la jaro iyo xabaasho la geeyo lagu xaaqo idilkood rag xiiqay baa yimid xilihii ilaawo xilka sooyadood iyo xaali iyo xanaan qurux lama xeerinayo xaq dhowr iyo xigaal dhimay xaqi hajiin baan hayso xaqi in rageedo waad wada xaraashteen xisaab baa dambayso xaashi aan la dhaafayn xog ogaal alle u yahay xubbigiini baan nahay xagga kale mar loo dayo xidigu shabeertiyo xayaadkiini baan nahay maansadaas intaasay ka kooban tahay runtii maansada waxay ka hadlaysaa waad aragtaan waa wacyigelin dhinac kastaba ah maansada labaad aan soo qaadan doono waxa la yiraahdaa waa maanso jacayl waxa la yiraahdaa guri kale ha caga dhigan maansadu waxay leedahay waad garatay inay yahow garab inaan ku soo biday gacaltooye iyo sharaf gobannimo ma dhaafine waad ii garaabtoo ima aadan goynine waxa tahay gobaariya anna gaabin maaye inta aan galgalan karo waxa aan go'aansaday inaan guusha noloshiyo geediga inoo dhiman ku gudoonsho xiisiyo farxadaan gaboobayn oo aan gacalahaygow ku ahaado garab iyo gaari aad ku faanto haweenkaaga gaaree aniguna gayaankay guud ahaanba inamada adaan kaaga go'ayo waxa tahay gobaariya gidigood ragoo idil geesigan ka doortee oo aan guud ahaantood xasuustayda garashada isaga uga gaar dhigay naftaydana ku irgaro waxaad ugu garaabtaa kalgacayl u gaaro guri kale ha caga dhigan maansadaasina waa maanso jacayl maansada labaad ama saddexaad aan dhahay aan soo qaban doono waxa la yiraahdaa waa maanso iyana wacyigelin ah dhalin yahay ma tabacnaa maansada tan waxa igu dhaliyay ama aan ku keenay inaan maansadan sameeyo run ahaantii marka la eego dhalinta Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in aan dalkooda waxba ool qaar kamid ah iskuma wada jiraan waxay aaminsan yihiin aan dhulka waxba ool ardaygii ama qofkii markii uu ka soo qalin jabiyo waxbarashadii uu soo dhameeyo wuxuu ku fikirayaa in uu shaqo meel kale macnaha uu xafiisyo iyo meel kale iska fadhiisto laakiin ma aaminsana in uu isagu samaysan karo hal abuur uu ku shaqeyn karo marka maansadu waxay leedahay dhalin yahay ma tabacnaa ma dhitaysanaa maal ciidan ku dhalaniyo dhulka ma u adeegnaa dhoof iyo tahriib iyo ma ka dhaaranaa Yurub dhibtu waa ayaamee samiraan dhamaanayn ma dhitaysanaayo ma u dhabar adeegnaa ma isku soo dhawaanaa dhaliishiyo xumaantiyo dhaliicaynta qayrkeen xaasidnimo ma dhaafnaa ma dhawaysanaa guul dhawaaq ma ugu yeedhnaa dhaawac kii tirsanayay ma beernaa dhir nabadeed ma ka dhiidhinaayo qabiilkiyo dhibtiisaba inaan dhaafno idilkii qarannimo ma dhaadnaa ma dhaqaajinaayo halka uu dhigeen tagay meeraha u dheer iyo Bluton ma dhaafnaa dhalin yahay ma tabacnaa dhulkeena irmaane dheemanka iyo luul kale dhaxalkiis ma guranaa mise waan ka dhoofnaa qayrkeen dhulkiisaan u dhaqaajinaayo hambadood ka dharagnaa. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.